السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan akhyaarta sharafta leh ku xidhan kanaalkeena barashada shaybaadhka soo dhawaada. Waxaan halkan idinku soo gudbinaa casharaan la taxalluqa shaybaadhka. Casharaanteena imtixaanaha ugu dambeeyay ee kaga hadlaynay urine analysis-ka waliba qaybtii chemical examination-ka ayaynu ku jirnay. Innagoo casharaantii ugu dambeeyay qaybtaas ku jirnay oo aynu soo qaadanay maalintii ugu dambeysay unugyada dhiigga cadcad marka lagu arko urinta waxyaabaha ay sheegto. Maanta waxaynu soo qaadanaynaa unugyada dhiigga cascas marka lagu arko urinta maxay sheegaysaa, maxaa sababa, sidee looga hortagaa, iyo calaamadaha ay muujinayso iyo inaga laab ahaan waxyaabaha inaga quseeya. Ugu horreyn, unugyada dhiigga cascas kaadida in lagu arkaa aad bay reer u tahay oo ma dhacdo badanaa. Haddii lagu arko xataa normal ahaan wax yar 2 ilaa 3 ayay sheegaysaa warbixinada ama warbixinooyinka koreen bogagga caafimaadka ka hadla. Tusaale ahaan 3 ilaa 5 oo kale waa normal caadi oo urine ta lagu arki karo ay leeyihiin. Kuwa kalena waxay leeyihiin urine analysis-ka lagumaba arki karoba RBC. Haddii lagu arko number yar oo xad yar ayaa lagu arkaa. Marka urine analysis-ka in horta RBC lagu arko fara badan waxyaabo badan oo calaamadaha bay sheegaysaa. Waxyaabaha sababa way fara badan yihiin. Haddii lagu arko urine-ta ay la socoto RBC, waxa ugu horeeya waxa weeye waa infection-ka ama urinary tract infection wax loo yaqaan. Infection ku dhaca kaadi haysta oo marka urine-tii ama kaadi haysta ay ku dhalato bacteria ay sababaysa infection. Waxa laga yaabaa in bacteria-daasi gidaaradii kaadi haysta ay dhaawacdo taas awgeed la soo raaciyo urine-tii kaadi RBC fara badan ay soo raacaan. Waxa kale oo ka mid ah kelida ama bladder-ka oo ay stone kaga jira dhagaxaas oo dhaawac u geysanaya ureterihii ama inflammation keenaya. Kaasna waxay sababaysaa in RBC lagu arko urine-tii. Waxa kale oo saddexa in trauma ama injury ay qofkii soo gaadho deedna kelidii ama kaadi haystii labada mid ahaan deedna urine-tii la soo raaciyo RBC. Waxa kale oo ka mid ah waxyaabaha kale ee kidney diseases-ka haddii kelida uu xanuun ka jiro oo kale iyadana way keeni kartaa. Kansarka isaguna ka mid ah kansarka ku dhaca ureteraha ama kaadi haysta. Waxa kale oo ka mid ah dawooyinka iyaguna keeni kara dawooyinka qaar ayaa lagu arki karaa in RBC ay sababaan maadaama dawooyinku aynu naqaano dawo kasta inay side effect leedahay. Marka waxyaabaha lagu arkayo urinta mararka qaar cells caadi oo RBC oo shibki RBC-ga ay oo toos oo cells-ka baad arkaysa. Marka urinta la baadhayo laba hab loo qaybiyaa. Waxa loo yaqaan gross hematuria iyo wax loo yaqaan microscopic hematuria. Gross hematuria waxa weeye inaad RBC-gi laftiisi waxaan jeedaa gross hematuria waxay noqonaysaa in aanad wax RBC arag laakiin urinta kalarkeedu uu tusaale ahaan casaan oo kale yahay. Urintii midabkeedu waa red, wax RBC-na ma leh. Markaas waxay ka dhigan tahay RBC-gi waa la burburiyey deetana iron-tii waxaan jeedaa heme-tii ama hemoglobin-tii ayaa urinta lagu soo dhex daayay. Saa awgeed waxay ka turjumaysaa in meesha RBC jiray laakiin RBC-gu uu burburay. Marka kaa wax loo yaqaanaa gross hematuria. Marna microscopic hematuria la yiraahdo waxaad indhahaaga ku arkaysaa RBC-gi markaad cells-kii aad microscope ka saarto. Cells-kii oo toos ayaad arkaysaa. Marka taasina labadaasina waxa weeye waa labada hab ee loogu arko urinta. oo marna urintii casaan baad arkaysaa oo bilaa cells, marna urintii oo cells leh oo cells casaana aad ku arkaysid ama cells-kii oo toos urintii morphology ahaan aad ugu arkaysid. Markaas waxa kaloo jirta qofka marka inagu aynu laabnahay waxa kalarka urinta waynu naqaanaa oo normal color of urine waxa pale yellow maadaama kalarkeeda ay ka tagtay oo red noqotay. Sometimes mararka qaar dawooyinka qaarna way keenaan iyadoo aanu RBC keenin laakiin calaamadaha uu qofku muujisanayo iyo
maxay ahayd tolay iyo midabku midda aad bay saameyn u kala leeyihiin. Percentage baa lagu kala cabiraa iyaga gudhooda oo percentage-ka majority la soo raaciyay urinta waa la kala sheegi karaa. Marka qofka waxyaabahaas oo kale haddii uu isku arko waxaa muhiim ah inuu la taxalugo dhakhtar si urine analysis loogu sameeyo amaba loogu sameeyo loo saaro tusaale ahaan ultrasound oo kale oo ama kalida ama bladderka intaba la ogaado. Marka RBC guud ahaan waxaynu ku soo ururinaynaa waa unugyada dhiigga cas kaadida caafimaad ahaan wax badan laguma arki karo. Warbixinaha qaar inaan waxba lagu arki karin bay sheegayaan, kuwana waxay sheegayaan in wax yar oo RBC lagu arki karo oo xaalad normal ay tahay. oo dadka xilliyada qaar ay exercise badan oo kala sameeyo mararka qaar waa lagu arkaa urintiisa RBC. inaga laab ahaan wuxuu bay noqoseeyoon RBC urinta in aan indicated toos uusan ku ahayn oo wax badan aan lagu arki karin haddii number badan lagu arkano meeshaas dhibaato ka jirto. waxaa kaloo ina quseeya haddii tusaale ahaan urintii oo ridhaad aragto RBC-na aad weydo inuu qofku israado meesha RBC kuma jiro maxaa sababay. mararka qaar ayaa waxaa jirta sida aan ku soo sheegnay gross hematuria in RBC-ga la burburiyo deedna hemoglobintii urinta la soo raaciyo, taasoo iyana sheegaysa in meesha uu infection ka jiro ama uu RBC urintii ay RBC fara badan ay jiraan. marka isagan intaasaynu ku soo gabagabeynayna insha Allah. casharka xiga intaynu ku kulmayno waxaan leenahay subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta nala moogaanina si fiican ayuu noogu socdaa kor u qaaditaankeena iyo motivation-kiina. aad baan ugu mahadsantihiin. casharka xiga intaan isugu imaanayno waxaan kaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.